istustus rubaayad cidlo ah qabyaalad iyo weliba xilalka in laga qaado dad aan waxba garabsanin oo la dulmiyo haddaba arrimahaas ayaan ka hadlaynaa waajib ayay maanta kugu tahay inaad ka qayb qaadatid oo aad u hiilisid dadka ku dhaqan caasimadda muqdisho dadka ku dhaqan soomaaliya oo dulman haddaba liibaan ayaa khadka ku jira oo aan soo gelinaya liibaan waa ku salaam asalaamu calaykum halo liibaan halo liibaan liibaan waan kusoo noqonayaa liibaan ma maqashaa liibaan waan ku naqon doonaa hadduu allah awood le uu saamaxo laakiin waxaa muhiim ah in xuquuqda ee leedahay magaalada caasimadda ee muqdisho in la raadiyo in laga qayb qaato dibadbaxyada magaalada london ka socda haddaba qof walbo muwaadinna waajib ay ku tahay liibaan ma maqlaysaa hadda oo ku maqlahaa qad kalmar ugo maxaa dhacay cilada ay qabsatay liibaan dibadbaxa biri ka dhacaya magaalada london iyo dadka ku daawanaya waxaad ka codsanaya sidoo jooga gobolada ingiriiska cadaan xaaja ujeedaa group ayaan anfaca ujeedaa group badan ujeedaa oo ingiriiska jooga maxaad ka codsanaysaa inkastoo janaad jeesta ujeeda Holland joogta fadlan sii share gareeya maxaad ka codsanaysaa dadka jooga ingiriiska si ay kaga qayb galaan dibadbaxa ka dhanka ah cunsuriyada farmaajo bismillahi rahmaani rahiim dhamaan waa salaaminta ummadda Soomaaliyeed runtii farmaajo qof bini aadan oo Soomaaliyeed oo u naxariistay hawiye wala daarood ma jirto waa ka warqabnaa system aad iyo aad u xun ku dhaqmaaya marka bari barnaamijka dhacay horta aan ku hormaro kadibna hawsha ugu sii dhaadhici doonaa barnaamijka bari waxa uu bilaabanayaa 9 subaxnimo 10 Downing Street waa meel la wada yaqaano meel walba aad degan tahay dadka gobolada banaanka degan London markii aad timaadid London waxa soo raaci kartaa Jubilee Line waxaana soo baxaysaa Westminster station right kaaga u soo leexanaysa waana arkaysaa waa 10 Downing Street waa halka ay degan tahay ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Theresa May halkaas ayaa ku mudaharaadi doonaa marka ugu horeyso kadibna waxaan u sii dhaqaaqi doonaa hoolka shirka ka socdo oo ku dhow Green Park oo aan ka dheereen anagoo dhexmari doono beerta weyn oo Royal Park marka waxa ugu baaqaya dadka dhan ay ka soo qayb galaano shirka waxa looga hadli doonaa xuquuqda gobolka Banaadir oo luntay mid kale adii nafsada hadda waxa ka hadashay maqaamka waa shay khaldan waa shay oo dastuurka lagu soo qoray oo qofna lagala tashanin wax maqaam la yiraahdo ma jirto gobolka Banaadir waa maamul federaal ah wuxuu la mid yahay 18 gobol oo Soomaaliyeed hadda kadibna laga bilaabo qof loo daba fariisanaya ma jirto wax maqaam la yiraahdana fadlan maskaxdiina ka bixiya kuwa meel walba ay joogtiin Soomaaliya oo dhan gobolka Banaadir waa Banaadirland saacadan laga bilaabo madaxweynihiisana goordhow waa maqli doontaan iyo gurihiisa wasaaradda nin loo daba fariisanaya caalamka ma jirto taas meeshaas uga baxo dhinaca kale Jubaland sidaan ka warqabno waxaan joognay in la yiraahdo aadan madoobe bulshada Soomaaliyeed oo halkaas ku nool anaga ka warqabno ogaadeen inay yihiin Soomaalinimo looma diidano laakiin se iskaba dhaafay qabaa'ilka hawiye iyo jareer weyn iyo tunni iyo shiiqaal iyo qabaa'ilka kale iska daaye hatta ogaadeenkii ayuu ku dulsan nidaamka Jubaland oo wuxuu ku soo koobay 4 nin oo ilma adeeradiisa u dhiibay maxkamadaha meel walba guryaha in la mariyo bulldozer saacad maalin cad ayaa dhacdo mar walba marka barnaamij wuxuu dhaafir la yahay 5 kilomitir magaalada Kismaayo asoo ku dul gabanaya ciidamada Kenyaanka ah dadkana aad iyo aad u dulqaadana waxa u baahanahay inay soo qaataan borarkooda ay yimaadaan oo meeshaasna insha Allah aan ka bilaawno nidaam system ah oo nidaamkan hadda jiro lagu burburinayo ma aan banaan baxa mid ku eg London wuxuu ka dhici doonaa Den Haag 22 sano ku wada hadda bisha insha Allah wuxuu ka dhici doonaa New York iyada nafsadeeda Ramadaanka ka hor xamarna waa ka dhacaya insha Allah taala asagana sida ugu dhaqsiyaha badan marka waa nidaam saas u socdo laakiin liibar ejir dibadbaxyada waxa lagu diidan yahay qaabka hadda u maamulayo farmaajo dalka habka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wadanka u maamulayo oo ah maamulka istustuska aan u bixiyo aniga runtii igu sawir nidaamkaas oo ah nidaam aan dawladda anficaynin waxyaabaha ugu cajaa'ibka badan oo aan ku arkay nidaamka hadda jiro waa nidaam dadka dib ugu celinaya qabyaalad
dib ugu celinaya burbur wadanka dib ugu celinaya xilligii uu ka tali jiray wadanka allah u naxariistay kaligiis taliyay maxamed siyaad bare oo Soomaalida ay u taqaano dawladii kacaanka laakiin markii luqadda iyo istilaaxa iyo sharciga iyo habka loo qeexayo kacaan iyo inqilaab laba kaliyiin kacaan waxa la yiraahdaa waa bulsha hogaamiso inqilaabna nidaam jira dhexdoodu ka dhashaa marka nidaamka siyaad bar wadan ku dhaqi jira xataa nidaamka kacaan lama dhigi jirin dawladda inqilaabka waa in taariikhda dib loo saxaa kacaan waxa la yiraahdaa ma jirin dawlad kacaan ma jirin dawlad inqilaaba jirtay marka taas waa mid loo ogaado midda kale dawladdaas waxay qabtay wasaarad cajiib ah oo la yiraahdo wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha oo hadda maxamed cabdullaahi farmaajo uu dib u soo celiyay dadku taas ma fahamsano taas macnaheedu waxa waa nidaamka siyaad baro completely aan waxba laga bedelin ayaa hadda ummadda ku dhaqaaya waa aragteen waxa la yiri dadka u dhashay jubooyinka koonfur galbeed iyo shabeelaha hoose iyo shabeelaha dhexe waa hal qabiil nama anfacayaan waa ciidankooda waa in la ruqseeya oo ciidan cusub oo Soomaaliyeed la abuuraa oo Puntland ka imaanay waa ognahay Puntland hadaba ciidamada Soomaaliyeed iyaga hogaamiyay jarnaaladooda iyo kuwa kale waa la isku dhex jiraa ummadda sida u jirtay kan ayaa kala diraya hadda wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya daqiiqada ka hor waxaan la hadlayay kanaan la yiraahdo Al-Mayadin oo af Carabi ku hadla oo aan warbaahin yar oo kooban siinay waxay ugu dhaheen wasiirka arrimaha dibadda saas ayuu ku hadlay warku ku hadlay waxba kama jiraan dhahay waa nidaam been ah Soomaaliya in dib loo qaybsado wasiirka arrimaha dibadda muxuu leeyahay waxa laga gudbay qabiilka muu leeyahay qabiilka laga gudbay ciidankii muqdisho joogay waa ciidan qabiil taas uu ku hadlaa asoo qabiilkii ka dhashaba nafsidiisa qolada laga gudbay uu sheegay ma aqaan marka meel uu ku nool yahay BBC-da ku dhex jira waa nin xaal kale ku nool caalam khayaali ah ku jira jamhuuriyadda Soomaaliya dimuqraadiga hadda laakiin liiba markaan runta isku sheegno reerka farmaajo uu ka dhashay gabadhooda wiilkooda odaygooda waxay aaminsan yihiin in nidaamka qabiilka laga gudbay baraha bulshada markaad fiirisid waxay ku leeyihiin nidaamka qabiilka waa laga gudbay waxa la gaaray qaran waxa la qaatay wax qabiil leeyahay ma jiro dad badan waxay isweydiinayaan waxa keen hadda international community ka xataa waxa la rabaa in laga gado wax la yiraahdo hawiye daaro digli milif la dir in laga gudbay beesha sanaad systemka farmaajo lagu doortay xasanna uu ku baxay nidaam qabiil u ahaa mislaha waxa la xaqirayaa xuquuqdii muqdisho ay lahayd iyo muqdisho inay Puntland la mid noqoto maxaa keenaya biri banaan baxa aad qabanaysaanna ma ku daraysaan in canshuurta laga soo qaado Garowe oo madaxweynaha reerkiisa ay ka soo jeedaan Cabudwaaq oo madaxweynaha uu ka soo jeedo oo gobolka galguduud ah Garbahaare iyo gobolka Gado canshuurta in laga keeno international community-ga ma ka galeysaan oo Soomaaliya ay noqoto meel loo siman yahay hadda waad ogtahay waxa la cunaa dekedii Muqdisho waxa la cunaa eelaboorkii Muqdisho canshuurta abgooye Shariif Xasan qaata mis qabanaysa marka in dadkii Muqdisho oo adiga ayayday hooyaday canshuurta laga qaado boqol kun laga siiyo Puntland iyo Jubbaland iyo Galmudug iyo hebel Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed dadkii Muqdishona ay baanaadaan arintaas ma qadiyad sax ah markii waxa la yiri moogtay rabbi ka cabso irag iska dhicin isku meel ma gasho farmaajo islaadahay waxa ku dhaqmayo wax loo dul qaadan kara maaha waana sax in Cabudwaaq laga keeno canshuurta Garowana laga keeno canshuurta Kismaayina laga keeno hawiye daaro dir iyo digli mirifle kulli in canshuurta la wada keeno halka hadda Muqdisho laga cuno وحقيقة ومثل لوب هاي قبل كبنادر نعرفها واسدا كل شيء عن كوب بلعبه مقام لي هذا دمكو هلو وكم قرايه سفي عن ليبان هذا مقام دم مجرته وقبل كبنادر وبنادر لان قبل بنادر حتى مجرته وبنادر لان عاد عن لقب بلعبه مسكحي انك بحير تاريخ عصبه بلعبه وبنادر لان بنتران لان قلمدق لان بنادر لان مرنا وكل واقعنا ان شاء الله وانا كسوق جلسه حفلتي qurbaha uga dhawaaqayna waxaan dhaxgelinaa nin la hadli karo male waa goofafkeeni waa dhulkeeni waa dadkeeni nin aan wax kala tashanayna male maxamed cabdullaahi farmaajana waa inuu madaxtooyada ka baxaa oo calana dhex degaa isagii dowladiisa liiban ma leenahay rab ama rabin waa lagu rabsiinayaa farmaajo banaadir laan puntland laan ama laan alla wada baabi'iyo waa fad ama fadsiinin waa lagu wada dhaqmayaa federaalka wax dadka la asar dib mad waa in loo fahamsiiyaa meel loogu heshiiyay federaal qaata ma jirto meel loogu codeeyo Soomaali ma jirto madaxweynaha hadda jooga nafsidiisa meel ugu codeeyo male baarlamaanka jooga maamul goboleedyada jira mid kale maamul goboleed baarlamaanka ansixiyo ma jira marka anaga maxaa noo diidaya reer banaadir laan hadaan nahay in anaga maamul goboleedkeena ku dhawaaqno wax noo diidi kara male
dadka walaalaha xamar marna galmaax yoonis u shiraaye marna u shiraaye wacbuudan marna u shiraaye wacaysle mar habar gidir iyo dudubla u shiraaye mar shiiqaal u shiraaye waxaan kula talinaya khuraafaadka ay ku nool yihiino anaga ma sugi karno iyo waxay ka talinayaano hawsheeni waa qaadan anaga dhallinyaro haddaan nahay adeerayaashiin awoyaashiina tihiin waa mahadsantihiin taa idinkama sugayno banaadirland waa ergejka xaddaa laga bilaabo madaxweynaha wasiirada iyadoo ku meel gaara kadib midda labaad doorashada kasoo qayb gala laakiin tan idinkama tashanen odayaasha xamar joogo ayaa taas hadda dibadbaxa brito magaalada london ka dhacaya ingiriiska ma ku iclaaminaysaan banaadirland in banaadirland muqdisho ay tahay sida puntland ay u tahay taasaaba ku iclaaminaynaaba banaadirland inay ay dhalatay idaacadahana taasoo u sheegaynaa laakiin mis leedahay liban farmaajo wuxuu diidan yahay haddii banaadirland la sameeyo lacagihii dakhligii uu heli jiray meesha ka baxaya dowladnimadiisa way sii daciifaysaa madaxtooyadii waxaa la wareegaya madaxweynaha banaadirland oo fadhiisan u naqanaya midaasuu ka cararaya mis leedahay ha ka carara ama ka carara taas waa wax aan kala tashanayna male waa waaqic jira xataa saacad ma siinayna anaga waa inuu baxaa si degdeg ah uu xalana u dhex degaa international community arkaa codda inay wada qaadato federal ama waa in laga wada tagaa marka anaga hor waaba qaadanaynaa ma sugay inta laga tegaayo anaga dhinacayna waa inaan ka qaadanaa banaadirland kadibna wixii ummad soomaali iskugu timaado looga heshiisiina allahana gaarsiiyo laakiin hadda banaadirland waa dhalatay waana shaqaynaysaa taadibna guddoomiye degmo waayo saacad laga laabo nin walaalkeena waayo waxba anaga cudurada ma qabto magaaladiisu dhinac ka gel gartay mar labaad liban hadda igu soo celisid walaalaha waxaan ka codsanayaa inay videoga ay sii sheergareeyaan si ay dadka ku dhaqan waddanka ingiriiska ay kaga qayb galaan dibadbaxa lagu raadinayo xuquuqda ka maqan muqdisho banaadirlandna lagu dhisayo farmaajona lagaga soo horjeedo fadlan sii sheergareeyay liban waxaad igu celisaa goobta dibadbaxa biri uu ka dhacayo wuxuu ka dhacayaa 10 Downing Street wuxuu ka dhacayaa dadka degan gobolada oo ka imaanaya gobolada gawaarida ku imaanaya waxaan u sheegayaa central london in lala soo geli karin inay ku adkaan doonto meel gaari dhigtaan aysan ka helaynin areadaas marka inay meelaha kore ay soo dhigtaan kadibna ay soo raacaan undergroundka tareenka dhulka hoostiisa mara Jubilee ay soo raacaan iyagoo kadibna uga soo degi doona Westminster Station halkaasoo ku aadan digta markii loo soo galana waaba 10 Downing Street halkaas ayaa taagana insha Allah sagaalka subaxnimo ilaa 3 galabnimo ayuu soconaya laakiin runtii ilaa 3 inaan gaari doono uma malaynayno sagaalka meesha markaan iskugu nimaadno 12 waxaa u dhaqaaqi doonaa hoolka weyn oo shirka Soomaalida oo dhan hadda loogu qabanayo oo banaadirland ay ka maqan tahay halkaas waxaan kula hadlin doonaa idaacadaha caalamka hadda aan la hadlay badankooda mar labaad halkaas kula hadli doonaa marka saas uu arintu booliska magaalada London ogolaasho ma idin siiyeen inaad banaan baxdaan farmaajona aad ku banaan baxdaan mar hore u sheegnay inaan ku banaan baxayno dowladda Soomaaliya hadda ka jirta ee xaqaro Boris Johnson wasiirka arrimaha dibadda u gudbinay birina warqad labaad Theresa May ra'iisul wasaaraha hadda xilligeeda dhamaadka yahay maadaama waddanka doorasho uu galayo June 8 iyadana waa usii gudbinay wax walba waddanka loo gudbiyo feelay leeyihiin meelaha la dhigaya banaan baxa dhacay maxaad warbixin igaga sii kartaa cunsuriyadda farmaajo lagaga soo horjeediyay qabyaaladiisa banaan baxa galabta dhacay waa mid lagu qabtay hoolka caaw inuu shirka ka dhaco oo ka khudbeeyo loogu talagalo oo iyadana aan ka dheerayn Westminster meesha anaga nafsadeena aan biri ku mudaaharaadno town hallka agteeda ah waxaana looga soo horjeedaa farmaajo waxaa u badan walaalaha galmudug oo hadda halkaas iskugu yimid iyagoo ka cabanaya dhibaatada magaalada gaalkacyo oo la kala qaybiyey oo koonfur iyo galbeed loo kala qaybiyey iyagoo walaalaheen ay wadaagaan xaggaas inay walaalaha puntland iyaga dhinaca kala joogo xadkooda meeshii hore oo dowladda Soomaaliya ay looga kala tegey mudug xadkeedu waa Garowe waa controlka Garowe in meeshaas la yiraahdo galmudug iyo puntland lagu kala reebo iyo Somaliland halkaas ay xadka rasmiga ah oo qofkan ka warqabin oo weligiis dhulka aan marin xadka controlkii xilligii dowladii inqilaabka ee Maxamed Siyaad Barre controlka Garowe halkaas ayuu xadka u dhaxeeya mudug iyo kala nugaal puntland marka waxay samaysay miya way soo shakatay inay waxay galmudug ay inqilaabto iyo bay rabshad iyo waxbay dadkan kale aad u dulminaysaa masaasa dibadbaxa waa taas iyo banaadirland waa ku jirtaa iyo labadaas qadiyada dadka mudaaharaada iyo nidaamka runtii kor oo dhan oo laga soo horjeedo nidaamkan farmaajo hadda haddii mar la magacaabo banaadirland
cunsuriyadiisa xagga qabiilka ku salaysan intee gaari kartaa isleedahay awoodiisa wana qusmaysaa mar haddii banaadirland ay hirgasho barnaamijkiisana wuu baaba'ayaa haddii madaxweyne uu noqdana kuma seexan karo qabiil gaar ah hawiye kuma seexan karo isaaq kuma seexan karo digri mirifle kuma seexan karo dir inteeda kale daaroodka qayb ka mid ah kuma seexan karo ma isleedahay awoodda farmaajo waxay noqonaysaa mid naaqusato haddii rabitaankiinan iyo dowladbaxaad wadaan uu noqdo mid la aqbalo banaadirlandna ay noqoto mid hirgasha banaadirland insha allahu tacaala qofka fadhiisanaya mala waa hirgelaysa taas asagaa kuu soo haray asaga wuxuu noqonayaa nidaam federaal ah oo madaxweyne federaal duulaan kuma nihin marka meeshuu doono caalamka ka degaya hadduu xamar waa federaal ka mid ah federaalada noqonaysa hadduu deganaanayo habka u deganaanayo waa kala hadli doonaa hadduu gudbayo federaalada kale u guurayana taasna asiga wax naga quseeya male taas wax anaga noo yaala maaha waa nidaamka federaalka iyo meeshuu degi doono isagaa ka xisaabtamaya laakiin anaga banaadirland anagaa la waraagayna gartay liibaan aad maan tahay waxaan rajaynayaa in dibadbaxaas banaadirland lagu hirgelinayo ay kasoo qayb galaan dhammaan ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka ingiriiska gaar ahaan reer muqdisho oo banaadirland qorsheeda hadda uu socdo waxaan rajaynayaa dadka jubbaland iyo cabashada qaba inay kasoo qayb gali doonaan wasaaradda warfaafinta dhamaystirin point aan taabtay haye wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha runtii waxyaabo qosol badan loogu qoslo farmaajo dembiga ugu weynaayo ummadda ka galay markii wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha uu isku wada qabtay macnaha hanuuninta dadweynaha waa fahamsantaa u malaynaya waa adeerkiis maxamed siyaada hanuuninta dadweynaha samay jiray soomaalidan macal kuwaas uu ka dhashay kala reebin waxba ma fahamsano caqli ma laha wax caqli aan leedihiina male soomaali weyn oo iskusoo duuduub caqli ma lehdiina anaga idin fikirayna wasaaraddaas waxay ka jiri jirtay carabta maxalligaan joogi jira masar wasaarat waxaa la yidhahdaa aliclaam walirshaad alqawmi xilligii jamaal cabdinaasir ay jiri jirtay xilligii xusni mubaarak hadda ku dambeeyey macnaheeda waxaa waaye wuxuu safwat shariif mid la yidhahdo oo masaare ah wasiirka faafinta ahaan jiray ma tafakkaruush ixnaa xanifakir lakum waa fahamta omalayna macnaheeda macnaha qof caqli leh ma jirto farmaajo timkiisa caqli leh oo keliya sidaasa waxba ma fikirin anaga ay fikireen marka criminal weyn kana waxa waaye madaxweyne markuu yahay dambi uu galo oo qalad loogama qaado xukun waxaa xukunka looga qaadaa arrin oo qaran marka waxyaabaha kale iska daaye unita dadweyne magacaaba keliya ugu filan in la horgeeyo baarlamaanka oo xilkaba laga wareejiyo hanuuninta dadweynaha macnaha haddaad fahansiisay hanuuninta dadweynaha waxaa weeyaan qof caqli ma jirto idinka fikirina farmaajo iyo tiimkiisa fikiraya cid kaloo fikiri karta ma laha waa eberatin ma fish wax caqli aan leediin ma laha hadda waa muqdisho ku dhaqan waa eber dad caqli leh maaha farmaajo uu sheegay riiso oo yiri farax magaalada ka dhaca ma dhigi karta macnaheedu waxaa kala ogtiina male jaahiliinad gartay taas waa midda laga hadlayo umad inay baarlamaanka soomaaliyeedna taas waa inuu ka dhigaya aad umaasan tahay liibaan waxaan rajaynayaa in dibadbaxaas reer ingiriiska gacan weyn ay ka geystaan la wada yimaado dibadbax weyn oo miro dhala insha allah kii aan ku guulaysanana naqdo guul baa idiin rajaynaya kheyr wayna hirgelaysaa ilaahay idinkiis farmaajona lagama baryaayo maamulka banaadirland guul banaadirland iyo puntland iyo banaadir waxaa mudan maamul goboleed banaadir oo waxaa kheyraad badan banaadir waxaa dhaqaalo badan banaadir waxaa dad badan banaadir at least waa ku nool 5 milyan puntland waxaa ku nool 1 milyan iyo ama 1 milyan iyo bar hadday ugu badato jubbaland waxaa ku nool wax 1 milyan ka yar marka mar walba waxaa isha mudnaanta iskale banaadirland oo meesha dakhliga badan ah meesha ugu dadka badan ah Soomaaliya puntland aan ku leeyahay ma santaa liibaan السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وحرجينا إن شاء الله تعالى إن دود بحث بريدة دعي دونا إن لقى صوّد قيب قالوا رير بنادرلاند وحيدي شيء يا وقول إذا سو هويتي وقول شدتك إسكاجد إلا دور فوضى وحركي إيسو قرية إن دبع عصر رسوا هذا دبع عصر وان كهلا دبع عصر وإحنا على كل عضي هدي هبرقدر ون على ذي يهوية أصلا على كل عضي قفك مركو قف مسلم ون على ذيه أصلا على ده كل عضا أول كوريا بن على كل عضي سي ماشي كسر جدي ويعيبه waxa kala ma dhahay aniga hadda wuxuu yiri daba casar u fiirsada daba casar wuxuu ka hadlaa mar walba siyaasadda farmaajo u hadlaa waa nin mariixaan hadda korna waa idin sheegay waa nin mariixaan ah
وأنا رأي ديني هويو وحب أوجدين ضد هرتات دين وكلين دب عصر مركو هالله هرك وكلش وكلين هذا دب عصر نم وهلن ما كنت سنة حد دب عصر دو وارين هاي وما ضلنا ويوالن تاي ها دب عصر شلي مركو حاسس الشيخ محمود جوجا هذا كور وكالله عاون وكالله يا ضدنا وكالله إنه كيني دونا لكن وحين قعد سنة يا غير إنجليزك إلهي وحن كبريه إنه ملحون كبحي قفك غير مقدشة أو بريتو أن كقيب قلين دبتبحا كتلنكا عنصرية إي قبيالة فرماجو إلهي وحن كبريه هذا دبتبحا كقيب قلين إنه ملحون كبحي إلهي وحن كبريه إنه علامة أعرفت كقيب قل وواجب كسارا ما أنت بريتا كقيب قل دبتبحا كتلنكا فرماجو كان عدون إنجليزكا هذا كقيب قلين سيشر قري فيديو قال سي رير إنجليزكا وروا واجب ما أنت إن بنادر لان لديسو والله بالله تالله هو واجب معايا يالي بنت لان أجرتا فضلا سيشار قرية قل مدو أجرتا هيرتشاوي أجرتا جبلان أو أحمد مدو أو قادينا أو هايستو ملح أو كاقفني وشيقال محل كرتا أو يري أو حقوق الله شلوا عرقتين باش شيقالو قم إنجليز كوي كل من سيديتا أوذيكا بدنا كلانتا كل فاتحي آخرين تو أو قادين أحمد مدو أو قادين كراشي إفرماجو مريحان كراشي والله بدا وضدارات فاتحة لغو طفل معايا يالي حقوق ضدك يا ظلميان ورجال جعل يا كمساكيسن او شغال يا كمساكيسن او جرر وينه يا كمساكيسن الهي كما سمديده يا كمساكيسن قولada la yiraahdo baajun war umadiyo la dulmiye madaxa laga istaago ilaahay waxaan ka bariye axmed madow inuu madaxa kaga istaago ilaahay waxaan kaga bariye farmaaji cunsuriyadiisa ilaahay inuu umada hor dhaafin war ninka da casra inuu meel soo fadhiisto wuxuu yiri maxamed ibn abdullah ibn farmaaja nacala wal ka ku yaal dius la بيجر والله بالله توه عمرنا مد كان دو عصر اللي يرادو وحا مرك خالص افكره وحا اسدها ور مد كان وحا اسدها دو عصر مريحانك حد وحو ليهي باج maxaa la yiraahdaa qofka marka la gudin maxaa la بيج ora ay maqan tahay waxa la dhahaa بيج lama dhahay waxa la dhahaa magaciisa ay maqanay waxa u maleeyay inuu su gudneen nacala wal canka ku yaal war ninka nacaska ah inuu meel soo fariisto wuxuu yiri qabiil dhan wuxuu yiri hawiye كل قدنا على إلهي كل على نعلة الله على هوية ورنيك عنيو مركز عن لنا شاقي وريا ما قاعدين شيء إن أنا دويسين تير إذا كان دويسين نكو إذا كشيء مرك خارو عن سلاي ولا وارون ورنيك عن عسكة الضخم كأ الديوس كأ وروح إجاسي درن كوا فيديو إن سوجرين أنت هبقدر يا ويوكو عيناي وسوي ذيك اللسان ورنيك عن ديوس كأ وإلا عيا ديوس أداء على التفير والله بالله سياسة فرماجو كشقيا ورنين كان موالنو نين هدوالين شاي حشق معايلها وريا نين إلك عسل يلا فير مروا مالي ولا وحبا إذا شيء إذاك وحاول مقشان وإذا ما تلاقي ستان ورميت إلك عسل يلا وقادينه وحيري إن دروايو وقت قاعد وودا ماذا ودني قد عدا أبنا وريا دروايو وقت ما كنت هاي وأمس نادين نين كان إلك عسل وقادين هذا شو حمر كل قال له ديسكا فير سبعي دقيقتي وحيري درواية وقتي أو لماذا حسن شيخ وايستا حسن درواية والله بالله طلع حسن شيخ درواية ما هنا ما قاعد إله إذا كنا فرماجة درواية حسن قبيل قارة موسى عوني جرين قبيل قارة موسى حقير جرين قف قايل ليس لما أرك جرين ضد موسى دول مجرين لكن منك درواية إلك عساء وقاعدين حسن شيخ وكنت المام درواية شبال ما يعني يور مكلال هذا المقصد مكلالي وقتي أو لماذا حد مكلال حتى واحد كفل يستنى مرة مقلاش هذا ويردي فرما